gabadha la dilay waa tuma qof inta lagu soo tabcayo Soomaali u soo kacday xaafidatu likitaabillah laba shiray loodahan ka qayb galay aayaad quraan iyo xadiis nabi ku bilowday salawaatullaahi wa salaamu alayhi waana ku dhamaysay say umadu u wacdinaysa bal adigu suurayso marag baan Allah hortiisa uga ah kuwa dilahaya qoftaas noocaas oo kala oo hooyada ah oo waalidka ah oo aqoonta leh oo Soomaali ku soo daashay oo libinta ka dhax raadinayo libinta ay doonayaan iyo libinta annaga libintaana laba libinooda islaam ah isku meel lama iman kara kuwa taas dilay cidna ma deynahayaan horena waa u sheegnay haddana waa ku soo celinaynaa dadka waxa loo baahan yahay inay baraarugu yeeshaan dhibaatooyinka jira waxa ka mid ah dadkii manaacadi baa ka luntay oo waxa arkaysaa intay dilaan qof intuu istaago wuxuu leeyahay hadda gacan ka xaq daran baa dishay ilaahay ha u naxariisto hadalka laftiisa wuxuu yahay hadal khudlaan ah ayaga soo istaagay waxa la leeyahay cinwaan weyn xarakatu shabaab oo waxa weeye sheegatay inay ka dambeeyeen dilkii meeshaas ahaa ayagoo ugu hiilinaya islaamnimada ugu hiilinaya war adeero mid ka dhahay gacan ka xaq daran baa dishay daadan dhihi kareynin cadawga najaqahayo aan iska qabanno ama Allah qabta aadan dhihi kareynin iska aamus gacan ka xaq daran baa dishay qofka marka la leeyahay waa qof ku qaldamay waa laba qof oo caadi isu magaciisu inta is ilaaqtameen oo midka kale u xoog sheegtay ama maxbad ku furay ama magaciisi yeelay laakiin aysan ahayn qofkan dhigiisa inuu xalaashado agtiisa u gaalka yahay laakiin cadawga horarka ah ee ku soo socda oo aanan dumar deynayn oo caruur deynayn oo ciroolo deynayn oo rag deynayn oo dumar deynayn oo mas'uul deynayn in la yiraahdo gacan ka xaq daran baa dishay waa marin habaabin in la marin habaabiyo xaqaa'iqdana waxa ka dhalanayo in dulmigu uu sii siyaado allana wuxuu leeyahay wala tarkanu ila alladheena zalamu fatamassakum an-nar haw ilanina kuwa dulmiga sameeya oo marka naar idin taabato ayagii baa soo istaagay waxay leeyahay annaga ka dambayna waa xishood la'aan waa waqaaxa waa ceeb waa foolxumo waa dullinimo dumar baa laayay waana ku faanaya billahi calaykum ayu diinin hada wa ayu aqlin hada diinka waxaas qaba Khalid bin Walid oo gaal ah baa waxa la yiri nabiga markii loo tashanayay salawaatullaahi wa salaamu alayhi kam min noqon dhalinyaradii loo qorsheeyay inay nabiga hal mar birta ku dhuftaan wuxuu yiri ninna laba nin ugu tagi mahaya buu yiri nin iga sii jeedana ku dhufan mahaya buu yiri saaf muru'adayda iyo sharaftayda ka weyn mushrik baa saagata nin iyaan iga soo horjeedin intaan dhabarka kaga imaado wax kaga ma dhufto kuwana inta yimaadaan habar yar oo meel si socotay mid ku dhaabaan bi Allahu akbar leeyahay islaamka ilaahay oo gargaar maxay tahay waxa shaqar lahan siiyo waa ceeb weeye dadka noocaas ah weeye dadka aynu isaga maaralaana dadkaas weeye dadka jumca iyo jamaacaadka loo oogilaayahay dadkaas weeye dadka khawfkooda uu gaarsiiyay mujtamaca xitaa inay ooyi waayaan oo dhihi waayaan hebel baan dilay laakiin ina bixinaysa maya dayuusnimada waxa kamid ah inaad ku fiirsato xubaatada ehelkaaga dadkaagi oo la dilayo inaad tiraahdo aniga si la ii daayo waa aamusaya dayuusnimo weeye dadka noocan in la iska dhiciyo min awjab alwaajibaat weeye